إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، سيدة قريب الله الشيخي موضوع درسنا إن شاء الله تعالى عاوة وحويان أسباب سعة الرزق، أسباب تكينته رزق أما أرساق ذا إن روح الله واسعيه وأن لو عيرين ومحاضرها بين دويد عن جوهانس بيكتشيدي ولا لونا يتشع عليستين إن العاوة كبصة وكتشوغة munaasabadana waad garanaysaana waxa weeye xilligan waa xilliga taqriiban dad badan oo idinka mid ah ay ku mashquulsan yihiin siday risq ku heli lahaayeen. waxaana la dhihi karaa dee waa muhiimadii aad u timaadeen South Africa u timaadeen ilaan janno maydaan u soo raadsanin sooma meeshan janno maydaan u imaan laakiin waxaad u soo raadsateen bal waxoogaa caysha in laga helo yay muhiimaddu ahayd. mawduucaasi markaa wuxuu ku saabsan yahay bal in jidad badan aan idin tuso oo keeni kara waxaad raadinaysaan inaad heshaan, iyadoo dadka intooda badan laga yaabo inay yaqaanaan uun hal jid ama hal sabab ama dhowr sababood hadduu dadaalo oo ay ka qarsoon yihiin asbaab fara badan ama jidad fara badan oo ku yaqaano ka gaaban ama ka fudud oo waxa la raadinayo lagu gaadhi karo. arrimaha marka inaan tusaalayno weeyaan ujeedadu. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu wixii sawaabana waafajiyo, wixii zalal iyo khata'ana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naga ilaaliyo. intaanan asbaabta gelin waxaan jeclahay inaan dhowr qodob ama dhowr qaacido aan ka hormariyo. qodobka koobaadi waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala addoommada wuxuu u qaybiyey risiqa sida akhlaaqda ugu qaybiyey ayuu risiqana ugu qaybiyey. waana qorshe iyo qaybin iyo qoondayn horraysay oo samaawaadka iyo dhulalka abuuristooda xataa ka horraysay, sida xadiidkii nabiga sal alla alay wasallam fi saxiixayn ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa aلsamaawaati wاlأrض ب50,000 sana.
allah tabaaraka wa tacaala wuxuu qoray wixii qorsho ah iyo maqaadiirta addoommada ku saabsan iyo khalqiga intuusan dhulka iyo samada abuurin 50,000 oo sano ka hor ayuu wax walba qoondeeyo qoray allah tabaaraka wa tacaala waxyaalaha la qoray waxaa ka mida marka risiqa ka mida addoonku intuu nool yahay ama ruuxu intuu nool yahay waxa uu helayo iyo waxa uu kasbanayo iyo waxa gacantii soo galaya iyo waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayo iyo waxa uu dhisanayo wax kasta oo ku saabsan ilaahay tabaaraka wa tacaala hore u qoray waxaa kaloo macnaha faa'iideynaya xadiidka cabdullaahi ibn mascuud radiyallahu ta'ala anhu wardaa أحمد حاكم باصو صاري كذلك البخاري في الأدب المفرد والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلهي تبارك وتعالى دحدي نوحو إذين قيبيي أخلاق دينا سيدا أرساق دينا بأو إذين كو قيبيي مرك إلهي با قيبيي تبارك وتعالى وانا وحي إلهي قرشي ربيان تبارك وتعالى مركو قرشي حكمتي سوحا كمدا إنو صندتك أسمين سيسمدا الدنيا ده أو سنكوض السمين حكمت باكو جرت أنت المامي دون إن شاء الله تعالى لكن وحا إنو موقتا إنا يددكو قيبيهين مثلا waxaad arkaysaa qaybta koobaad ee dadku waxa weeyaan waa dad fuqara ah fuqarada waxa la yiraahdaa waa ruuxa ama dadka aan heli karin waxba ma haystaanba qayb kamida mujtamacaadka waxba gacantooda kuma jirto kuwaasi fuqara la yiraahdaana waa qayb labaad masaakiin baa la dhahaa kuwa hore way yara dhaamaan wax waa haystaan laakiin waxay haystaani kuma filla oo baahidoodii xaajaadkooda asaasiga ah ma wada gaadhayo oo ma wada daboolayo waladaana masaakiin baa la yidhahdaa cala raajix miskiinka iyo faqiirka miskiinka dhaama adilada loo daliishadana waxaa ka mid ah aayadda ku jirta fi suurati al-kahfi ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala amma as-safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an aciibaha niman dooni u shaqayso oo wax u soo saarto ayaa waxaa la leeyahay masaakiin la leeyahay marka hanti waa leeyihiin oo doon baaba u shaqaynaysa haddana maca daalika allah wuxuu ku tilmaamay inay masaakiin yihiin sababtu waxa weeye doonta waxa ka soo baxayaay baahidooda ma wada daboolayo marka miskiinka kaasaa la dhahaa dadka qayb ka midana waa masaakiin oo waxay haystaani kuma filla qaybta saddexaad waa dad haysta wax ku filan oon ka badnayn hoygiisa waa haystaa biilkiisana waa haystaa isbitaal hadduu u baahdo waa haystaa arradbixiisa waa haystaa laakiin wax siyaadoo badan ma haysto inse baahidiisa dabooli kartoon ka badnayn buu haystaa qaybta waa qaybta ilaahay uu ku irsaaqay risiqa la yidhaahdo kafaafka haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu iimaan iyo toosnaan uu kuugu darana waa martabada ugu fiican kafaafkaasi waana tii nebigu sal alla alay wasalam uu ku ducaysan jiro wuxuu dhihi jiray allahuma ajcal risqa aala muxammadin kafaafa ilaahow reer maxamed waa qoysaskiisa risiqoodiiyo arsaaqdooda waxaad ka dhigtaa wax ku filan oon ka badnayn bimacnaa garoo hadday kaa badato waxay kaa mashquulin doontaa wax iyada ka qiimo badan aakhiradaada iyo mustaqbalkaaga iyo adduunyada ka qiimo badan bay kaa mashquulini sida qaalibkee badan
saas daraadeed buu nabigu ku ducaysan jiray ilaahu wax ku filan oon ka badnayn reer maxamed risiqooda ka dhig xadiidkii cabdullaahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim baa macnaha isaguna tilmaamaya oo nabigu yihi sal lla alay wasalam qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqannacahu allahu bima ataah waxaa liibaanay ruux islaamay oo ilaahay islaamnimo iyo diin saxa siiyey kadibna lagu irsaaqay wax ku filan kadibna intaa la siiyey lagu qanciyey oo ku qanacsan iimaan ku qabo oo qalbigiisu ku degan yahay saddexdaa qodob ruuxii helay waa liibaanay buu nabigu sal lla alay wasalam marka dadka qaybtiisa labaad waa qaybta kafaafka haysata haddii ilaahay diin iyo taaco iyo khayr ugu darana ayagaa u fiican qaybta saddexaad waa dadka haysta wax ka badan baahidooda waana dadka la yidhaahdo aqniyada ama ahriyada la yidhaahdo ayagaa haddana sii kala sarreeya oo maraatib iyo darajaad kala sarreeysa yihiin inta aada arkaysaan ee dadku u qaybsamay marka waa rabbi tabaaraka wa tacaala qaybintiisa waay rabbi baa saa u qorshay iyagu saa mayna iska dhigin laakiin rabbi baa tabaaraka wa tacaala saa ugu talagalay inay sidaa kala noqdaan su-aashu waxay tahay marka allah tabaaraka wa tacaala dadkan wax uma waayin hadduu doono rabbi tabaaraka wa tacaala kulligood wax ku filan buu wada siin lahaa maxay tahay xikmadda ku jirta in mid faqiir laga dhigo oo mid miskiin laga dhigo oo mid waxoogaa ku filan la siiyo oo mid taajir isnacay laga dhigo maxay tahay xikmadda ku jirta allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimku ku tilmaamay dad badani waxay u haystaan oo aan mas'alada fahansanayn oon dhuuxin fiqhigeedana aan la waafajinin oo dadka iska busatada ah waxay u haystaan dadka wax la siiyeyna in la jecel yahay kuwa la qadiyeyna in la nacay saxna maaha siismada iyo ku-cidhiidhiga iyo uwaasicinta iyo qadintu midna kuma tusto adduunyada in ilaahay ku jecel yahayna kuma tusto inuu ku necab yahayna kuma tusto laakiin xikmad kalea ku jirta xikmadda ku jirtaay qur-aanka kariimkii waa tilmaamo rabbigeen wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala walow basata allahu الrisqa licibaadihi labaqow fi اlأrض walakin yunazilu biqadarin ma yashaa ilaahay hadduu addoommada risiqa u wada waasicin lahaa dhulka dhexdiisay ku qooqi lahaayeen laakiin rabbi wuxuu soo dejinayaa qiyaas iyo qadar maslaxadooda iyo dantooda ku jirto haddii la wada dharjin lahaa oo sanad walba barwaaqo laga dhigi lahaa oo waxay rabaan la wada siin lahaa way qooqi lahaayeen oo way kibri lahaayeen oo way xadgudbi lahaayeen oo xakamahay goosan lahaayeen laakiin ilaahay wuxuu soo dejinayaa qiyaastaasi marka dantooda iyo maslaxadoodaa ku jirta waa idinka arkayoo sanad 2 sano markay barwaaqo noqotoba sanad abaaraa imaanaya xoogaagii la kaydsaday baa la cunayaa xoolihii qaar baa dhimanaya qaar fara badanoo waxaystay waxoogaagoodi waa burburayaan meeshan markaad joogtaan sanad baad si fiican u faa'iidaysaan gacmaha buuxsanaysaan soo ma sanadka dambena waxbaa isku dhex daadanaya meelay ka timid adigu garo haddaad lafihii celceliso waa dadaasha soo ma lafihii haddaad ku mitido sanadkaa waa dadaasha xagee ka socotaa marka rabbi baa tabaaraka wa tacaala waxaan maamulayo waa wax ka baxsan ibni aadamka awooddiisa ka baxsan waa marka rabbi tabaaraka wa tacaala ibni aadamka inuu miisaanaado oo uusan gudbin xuduudda oo uusan qooqin lianna hadduu qooqo xuduudda gudbo waxaa markaa ka dhalanaysa cuquubooyin keeni kara halaagiisa waxaa laga ilaalinayaa marka sababtii keeni lahayd halaagiisa keeni lahayd baa laga ilaalinaya waxoogaa markuu joogo yaro waxoogaa la siiyo oo yaro farxo barwaaqo helo maalmo uu damaashaado dhag waxoogaa dharbaaxaa loogu dhufanaya
soo laabanaya marka meeshiisu ku soo noqonay haddana waxoogaa baa la siinayaa waseetada loo sii dayn waa la yara daajin markuu is yara halmaama haddana mid kale dhag waa lagu dhufanay sidaas rabbi awsha ku wada tabaaraka wa tacaala xikmad weyn baana ku jirta ibn aadamka in badan oo kamida aynan fahmaynin ama ayna ku baraarugsanay xikmadda labaad ee ku jirta waxay tahay quraankuna tilmaamay rabbi wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون قاركين بان قارك كلا كسر ريسيني حق الدنيا ذا إيا قيبين تيدا قاركين مسندين قار با قارك كلا لقسر مريي محاسا الله يلي ليتخذ بعضكم بعضا سخريا si qaarkiin qaarka kale oo uga dhigto adeege iyo shaqaale uga dhigto inaad isu adeegtaan oo isku xidhnaataan oo isu shaqaysaan ayaa ku jirta in la idin kala sarreysiyo inaad isku xidhnaataan oo isu shaqaysaanna noloshiina ku jirta kaba soo qaad maalan haddii kulligeen ruux walba wuxuu u baahan yahay la siin lahaa shaqooyin iyo hawlo fara badan oo nolosheenu aynan ka maarmin baa la waayi lahaa cidii qaban lahayd maanta hadday dadku wada dheregsan yihiin adiga dukaanka yaa ku iibin lahaa shaqaale dukaanka ku iibiya miyaad heli lahaa maya hadday dadku wada dheregsan yihiin injineer guri kuu dhisa iyo fuundi guri kuu dhisa maadan hesheen adiga baa uu shaqaysan lahaa mid jidka kuu hagaajiya maada hesheen mid musqusha kuu qoda maadan hesheen mid qashinkiiyo kaa qaada maadan hesheen mid jikada kuu galo raashiin kuu kariya maada hesheen oo noloshaadu intaa miyay ka maarantaa ya soo uma baahnid wax aad kaashato oo dirsato oo kuu adeego oo shaqooyinka asaasiga kuu qabto oo ka kuu qabanaya muxuu kuugu qabanaya ma ku jecel yahay mise dhalashaa idinka dhaxaysa mise jannu kugu raadsanaya maya dantiisaa kugu xidhan sooma dantiisaa kugu xidhan haddii lagaa xadhig furo oo isagana meeshiisa lagu dharjiyo yaa kuu shaqaynaya waa soo saas ma xikmaddaasi marka waa xikmad rabbaaniyo cajiib ah waay ibni aadamka inuu isu baahdo waxaa ku xidhan jiritaankiisaa ku xidhan sidaas daraaddeed buu rabbi kala sarraysiiyey oo qaarna wax siiyey qaarna rabbi tabaaraka wa tacaala dhexdhexaad ka dhigay qaar sarraysiiyey qaar hoos geeyey calashaan inay muxuu ahay noloshoodu isdhammaystirto oo ay sii jirto ee adduunka sii camiraan ma jirto marka fahamka dhahaya ilaahay tabaaraka wa tacaala midka uu qadiyeyna wuu nacay midka uu wax siiyeyna wuu jecel yahay fahamkaasi sax ma ah bal waa faham darrawi rabbi tabaaraka wa tacaala wax siintiisa xikmaddaasi kama muuqato bal rabbi jacaylkiisa iyo nacaybkiisa waxaa lagu gartaa mabda'a ruuxu xambaarsan yahay caqiidadiisa suluugiisa dhaqankiisa jidka uu hayo acmaasha uu samaynayo taasaa waxay ku tustaa in ilaahay nacay iyo in ilaahay jecel yahay mabda'a uu rumaysan yahay iyo jidka uu haya kaasaa ka turjuma ma allah nacay mise allah jecel ama siismada carruurta la siinayo xoolaha la siinayo manaasibta iyo jagooyinka la siinayo adduunyadani iyadu ma aha jacaylna kuma tusto nacaybna kuma tusto ibni aadamku laakiin asaga faham xumadiisa meeshaasuu la aadi sida qur-aanka kariimka alla ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala faama alinsaanu idaa ma btalaahu rabbuhu faakramahu wanacamah fayaqulu rabbii akraman waama idaa ma btalaahu faqadara calayhi risqahu fayaqulu rabbii ahaanan ibni aadamka buu rabbi tabaaraka wa tacaala rabbigii hadduu imtixaano oo uu risiqa siiyo u waasiciyo wuxuu leeyahay rabbigay baa ii karaameeyey dooranaan ahay oo waa lay doortay
dadka alla iga jeclaaday haa xagga rabbi baan dadka uga dhowahay oo maxaad uga dhowdahay lagugu doortay dee waxaan la isiiyey soo ma aragti oo carruurtan iyo muxuu ahaayey waxaanuun iga farcamay soo ma aragti oo hantidan soo ma aragti allahaa isiiyey waa ijecelyahay aakharana sidaa unbaa la ii siin doonaa haddii rabbi tabaaraka wa tacaala uu imtixaano risiqana ku cidhiidhiyana wuxuu leeyahay rabbi ahaanan rabbigay baa ii ahaanaystay alla waa lay nacay la ima rabo haa waa muxuu ahaay waxaas u daldalaya aayadda u fiirso labadaba rabbi wuxuu yidhi kan la siiyeyna waa imtixaan idaa mabtalaahu waa imtixaan kan laga qadiyeyna waa imtixaan xikmaddu waa imtixaan laakiin asagu muxuu u qaatay mid wuxuu leeyahay rabbi akraman midna wuxuu leeyahay rabbi ahaanan marka ihaanana kuma jirto ikraamna kuma jire masaladu waa masalatu libtilaa waa imtixaan rabbi tabaaraka wa tacaala kan la siiyeyna waa la imtixaani kan la qadiyeyna waa la imtixaanay xadiidkii nabiga sal alla alay wasalam ee aan muxaadarada ku bilownay xadiid cabdillahi bn mascuud ayaa qaybtiisa dambe waxay ahayd waina allaha yucطi اdunyaa wafii riwaaya yucطi اlmaal man yuxibu waman laa yuxib walaa yucطi اliimaana ila man yuxib allah tabaaraka wa tacaala xoolaha iyo adduunyada wuxuu siiyaa ruuxuu jecel yahay iyo miduusan jeclaynba iimaankase ma siiyo ciduu jecel yahay cid aan ahayn marka in lagu jecel yahay maxaa ku tusaya iimaanka iyo mabda'a iyo caqiidada iyo suluuga iyo akhlaaqda iyo jidkaad hayso kaasaa ku tusaya in lagu jecel yahay laakiin waxa lagu siinaya iyo xooluhu kuma tusaan bal marar fara badan rabbigeen tabaaraka wa tacaala lixikmatin wuxuu sameeyaa addoonkiisa mu'minka ah ayuu adduunyada ka celiyaa oo wuu ka ilaaliyaa si uusan dhibaato u gelin xadiid waxaa jira xaakim uu soo saaray oo saxiixa abu saciidna waa laga wariyaa maxamuud ibn labiidna waa laga wariyaa wuxuu leeyahay xadiidkaasi nebigu sal lla alay wasalam ina allaha la yaxmii cabdahu lmu'mina min addunyaa kamaa taxmuuna mariidakum alطacaama waasharaab ina allaha la yaxmii cabdahu lmu'mina min addunya wahuwa yuxibuhu kamaa taxmuuna mariidakum alطacaama waasharaab ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisa mu'minkaa wuxuu ka ilaaliyaa adduunyada isagoo jecel adoon alla isagoo jecel buu addoonka ka ilaaliyaa xoolaha iyo adduunyada ka ilaaliyaa sida ruuxa idinka jiran aada uga ilaalisaan cuntada iyo cabbitaanka soo ma jiro ruux xanuunsanaya oo jiran oo la yidhaahdo cuntada iyo cabbitaanka ha laga ilaaliyo maxaa yeelay cuntada iyo cabbitaanku caafimaadkiisii bay dhibayaan khatar bay ku yihiin inuu u dhintaa dhici karo sidaas daraaddeed bal ha laga ilaaliyo sida aadka idinka xanuunsanaya marmar hadday cuntadu khatar gelinayso ama cabbitaanka uu halis ku gelayo saaad uga ilaalisaan oo kale buu alla tabaaraka wa tacaala addoonka mu'minkae uu jecel yahay adduunka uga ilaaliyaa muxuu uga ilaalinayaa inuu ku fitnoobo waa laga baqi soo ma adduunyadan wax ka fiican inuu ku dhaafaa laga yaabi ilaahay maslaxadiisu marka ilaalinaya tabaaraka wa tacaala marka xikam fara badan iyo maqaasid fara badan baa ku jirta qaybtan rabbi tabaaraka wa tacaala uu sidaa wax inoogu qaybiyey ee keliyatu masaladu nacayb iyo jacayl iyo ikraam iyo ihaana ma aha xidhiidhna lama laha arrintaa iyada ah intaasi markaan intaa kaga soo gudbo oo qawaaciddaasi aan ka soo gudubno risiqa ilaahay qaybiyey ee uu bixiyey in badan oo ka mida rabbi wuxuu ku xidhay asbaab oo waxaa ku xidhan addoonku hadduu sidaa iyo sidaa yeelo risiqaa ha loo kordhiyo intaa ha la siiyo hadduu samayn waayo intaasi yaan la siinine ha laga jaro asbaab fara badanba marka waxaa jirta keenta lianna rabbi waxaa ka mida sunankiisa kowniga waxaa ka mida sunankiisa iyo qaanuunka kownka uu ku maamulo waxaa ka mida qaanuunka iyo sunnada la yidhaahdo
sunnatu الsabab wاlmusabbab shay kasta rabbi wuxuu u yeelay jid loo maro iyo sabab haddaad la timaado natiijadeedii aada helayso marka haddaad jidkeedii marto ood sababteedii la timaado rabbi tabaaraka wa tacaala musababaadku ku siinaya wixii ka dhalan lahaa natiijadii ka dhalan lahayd buu ku siin biidnihi laazima inuu ku siiyo laakiin biidnihi rabbi tabaaraka wa tacaala sidaasuu marka asbaabta iyo musababaadka masalada labaad risiqa sidiisaba in la raadiyo oo la dalbo oo ruuxu ilaahay arsaaqdiisa uu raadsado matlab sharci ah waa arrin shareecadu ay rabto sababtuna waxa weeye rabbigeen tabaaraka wa tacaala addoonkiisa wuxuu rabaa inuu noqdo addoon kaaftoon oo ka kaaftoon khalqiga addoon aan baryootamin oo aan shaxaatamin oo aan gacanta hoorsanin oo khalqigaa ka kaaftooma oo dadkiisa aan culays ku noqonin oo markuu ugu yaryahay lafihiisa ku filaan markuu ugu yaryahay lafihiisa ku filaan sidaas daraaddeed baa asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam iyagoo jihaadaya oo dagaalamaya oo diinta wada oo waqtigooda intiisa badan uu diinta ku baxayo ayay haddana maca daalika risiqooda raadsan jireen xataa kii wax waaya oo shaqo kala waaya subaxdii intuu kaco ou duurka aado buu xaabo soo guran jiray markaasuu xaabada tunku ka keensanaya suuquu geysanayaa xaabadii waa gadanayaa waxoogaa baa ka soo gelaya qaarna waa biilanayaa qaarna wuu sadaqaysanayaa subaxda xigtana waa ka lahayaa xaabuu soo guranaya soo ma marka shaqayso oo xamaalo oo dhibaatood oo noloshan iyo adaygeeda madaxa ku dir oo ha u hoggaansamin inaad noqoto daciif isaguna culays isku ah mujtamaciisa iyo dadkiisana culays ku ah shaqana ha ka dhiganin inaad dadka ibni aadamka gacantiisa waxa ku jira inaad raadiso marnaba hunguriyuusan kaa gelin maxaa yeelay sida nabigeenna ka sugan sal alla alay wasalam addoonka su-aasha badan oo dadka wax weydiista oo gacanta u hoorsada maalinta qiyaamada wuxuu imaan doonaa isagoo wejigiisa uusan cad hiliba ku oolin wejiga dhan baa la diirayaa markaasaa lafihii baa soo baxaya maxaa yeelay wejigan sharafta badan ee karaamada badan ilaahay cid aan ahayn inaad u dullayso ma aha haddaad cid weydiisanaysood u dullaynayso allah baa loo dulleeyaa laakiin khalqiga ha u dullayn saas daraaddeed baana xadiidkii qabiisa nebigu yuhi sal alla alay wasalam qabiisow su-aasha iyo waxweydiisiga dadku waa xaaraan wixii lagu helana waa xaaraan waa suxti ilaa 3 ruux mooye 3 ruuxoo yani waxa weeye duruuftu u geysay oo dantu ku kaliftay oo daruuradu ku kaliftay 3daasaa la soo reebay wixii kale waxaa la yidhi waa suxti iyo xaaraam wa maxaa la doonayaa marka ruuxu waxaa la doonayaa inuu noqdo shakhsiya muntija shakhsiya iijaabiya shakhsiye aan culays ku ahayn dadkiisa iyo mujtamaciisa ee ah mid wax soo saara wax dhaliya wax keena xamaasha beerta fasha yacni waxa warshada aadoo xamaala suuqa galo oo ganacsada yacni xoolaha raacda duurkiisa galo ilaahay risqiisa raadsada sidaasaa la doonaya yacni inuu noqdo ruux wax soo saara maxaa maqsuudku u yahay maqsuudku waxa weeyaan adduunka maanta waad ogsoon tihiin dowladaha iyo mujtamaca ay ku bato dadka shaqo la-aanta ah waxay ku tusaysaa dibdhac iyo noloshiio sii hallaabaysa iyo halis bay ku tusi marba haddii dadka shaqo la-aanta iska taagtaagan ay bataan mujtamacaasi dibdhac shaki male islaamku marka waa horuu xalliyey arrintaa iyada oo u diiday dadkiisa inay noqdaan dad ama meel taagtaagan ama dadka kale waxooda ku dulnool shaqayso wax soo saar
arrintaasi marka waa mabda' ka mida mabaadi'da shareecada ka mida acmaasha ilaahay ugu jecel yahayna waxaa ka mida addoonku inuu shaqaysto wax soo saarto oo gacantiisa wuxuu kula soo baxo inuu yacni wax weeyaan uu muxuu ahaayey uu isticmaalo oo uu isku filaado oo uu dadkiisa anfaco dalkiisa anfaco qodobkaa isagaa marka waa matlab ka mida mataalibta shareecada ka mida sidaa markaynu nidhaahno jidad baa haddana shareecadii inoo tilmaantay shaqaysta markii layna yidhi shaqaysta oo ibni aadamka ilaahay wuxuu ku abuurayba ilaa wuxuu ugu talagalay inuu camiro dhulkan khaliif buu ka yahay dhulkan uu ku nool yahay maadaama uu khaliif ka yahay ilaa inta ilaahay ugu talagalay inuu adduunkani dhisnaado inuu camiraa loogu talagalay inuu dhiso oo hormariyo oo uu muxuu ahaayey yaa loogu talagalay ibni aadamka kolba dadaalkuu bixiyuuna ilaahay wuxuu ugu furayaa asraarta kownka ku jirta ilaan ikhtishaafaadkan hadda ibni aadamku uu kolba gaadhayo kolba waxbaa soo baxaya kolba waxbaa la ogaanayaa kolba sir caalamkan ku duugnayd buu ibni aadamku gaadhayaa ama ha noqoto fi majaali tibi ha noqoto ama teknolojiye kale ha noqoto maalinba waxbuu ibni aadamku soo saarayaa oo gaadhaya macnaheedu ma aha waxan inuu isagu abuurayo maaha ma keenin isagu laakiin asraar waaweyn oo kownkan ku qarsoon baa ilaahay maalinba qayb uga furayaa waxyar baa sirtaa laga siinaya dadaalka marka kolba uu dadaalo baa rabbi ku siinayaa iyo kolba asbaabta siduu u qabsado iyo jidkeeda u maro asbaabtaasi marka asbaab fara badan weeye ilaahay fadligiina waxa ah tabaaraka wa tacaala diinteenna waa diinta islaamka ma aha diinu ruhbaaniya ma aha diin suufi noqo oo duurka gal oo meelaha cidladaa intaad ka dhigato sawmacad ka dhisato meelaha uun madaxa laalaadiyo foor diin ku dhahaysa maaha waa diin ibni aadamka adduunkiisa iyo aakhiradiisa isu dheelitiraysa adduunkaagii wixii ilaahay kuu qoray qaado ha halmaamin intifaacso dhanka kalena aakhiradaadii oo adduunkaaga ka muhiimsan ha dayicin waa diin isu dheelitiraysa markaasay haddana adduunyadii lafteedii iyo aakhiradiiba waxay ina siinaysaa jidadkaan u mari lahay tala bixin baa lagu siinaya adduun kasabkiisa ma rabtaa risiq barakaysan ma rabtaa risiq waasaca ma rabtaa risiq aad ku degta ma rabtaa jidkiisii waaka halkaa mar halkaana ka leexo sidaa u dhaqan waxaa lagu siinayaa talooyin aakhare ma rabtaa janno ma rabtaa ilaahay ridihiisa ma rabtaa inaad daawato ma rabtaa rabbigaa wejigiisa tabaaraka wa tacaala cadaab inaad ka badbaadiyo cadho ilaahay ma rabtaa jidkaa mar oo halkaa ka gudub meeshaana iska ilaali talooyin baa lagu siinaya talooyinkaa markii lagu siiyana adaa khiyaarka laguu daynaya soo ma markii jidka laguu muujiyo waxaa lagu leeyahay aday kuu taalla marka ama qaado ama ha qaadani warku waa cadi waxba laguu qarin maayo sidaas daraaddeed shareecadeennu waxyaalaha ay tala bixinta badan ka bixisa waxaa ka mid a ruuxu siduu ku heli lahaa risiq waasic ah oo xalaal ah oo dayib ah oo mubaarak ah talooyinkay bixisa waxaa ka mid a asbaabta iyo jidadka loo maro risiqa xalaasha ah kow waxaa ka mid ah alistiqaama calaa manhaji illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay dariiqiisaoo lagu tooso furaha ugu muhiimsan oo ilaahay khasnadihiisa lagu furto waa kaa inaad dariiqii rabbi tabaaraka wa tacaala aada ku toosto oo diintiisa ilaaliso ood waajibaadka gudato waa ta ugu muhiimsan waa wixii ilaahay kaa xarimayna ka fogaato qur-aanka kariimku rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala qodobkaasoo waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ruuxii alla ka baq oo dariiqiisa ku toos oo waajibaadka guta oo xaaraanta iska ilaaliya rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu siinayaa dhibaatada ku dhacdiyo culays kastoo qabsada jidkuu kaga bixi lahaa waa la siinaya
waxaa kaloo uu ka irsaaqayaa alla meel uusan malaysanaynin adiga waxaad rumaysan tahay naftu orod bay kugu aamintaa laakiin rabbigaa tabaaraka wa tacaala meelo kaleetoona kulaba ahayn waxbaa kaa soo gelaya yuu irsaaqadda kaa siinaya waa goorma markaad jidkiisa ku toosto وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا هذي طريقة كتوسي لهايين وحانو ورابين لهين روب دبعوا وين روب هي دبعوا وين هذي روب كالصمد يمادنوا إلهي الصمد وفرنا نول كان بركات كيسو فريا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هدي أمده إنه الريب على الله يا مجتمعاتك دتكي هراء هدي أي اسكدر لهايين إيمان إيه الله كعفس والطريق الرب أي كتوس لهايين الله وحليه وحان أفر لهايين بركات كالسمدة إيه كرنول كاللبضة بوان أفر لهايين ويسبينيين markaasaanu ciqaabnay buu Alle tabaaraka wa tacaala marka iimaan iyo alla ka cabsi iyo dariiq toosan ilaahay daacadiisa lagu hagaago waa qodobka ugu muhiimsan qodobada lagu gaaro risiq waasic oo xalaal lagu gaaro adiga miyay kula tahay inaad suuqa gashood orodo mooyaane laakiin salaada aad tukanaysaad risiq ku heli wali ma kula noqoto ya salaada waxaynu ugu tala gashanahay inuu aakhira ajir kaga hela mooyee laakiin adduunkaabad wax ku heliba ina lama ah sooma saas daraadeed baa jadwalkeena waxay kaga qoran tahay meesha ugu dambaysa haddaan ognahay inay iyaduba furihii tahay shaki male xagga horaan gelin lahay sooma xagga hore baan ku qori lahay allah tabaaraka wa tacaala marka asbaabta uu inoo sheegayo wa huwa al-khabiiru al-aliim taasa kamid وهو العليم الخبير وحكمده أسبابته إيضاء التوكل على الله تبارك وتعالى إن هذا إلهي تلسارته ومحيط إلهي تلسارته مع القوضاء إن هذا أسبابتين التي مادو أسبابته وحكت لنا نتيجتنا إلهي أدي صدقك الصونات ساسا لنا هذا توكلك وأخذ الأسباب مع الثقة بالله تبارك وتعالى في المسببات والنتائج سبب كي أدوحن كوجار الهيد كان شد كمر لكن وحن إناد هلي إناد هلين ربي قعنتي سيكوتشر تايو كوكل صنو وأدى إسكا وأنا قاعدة هروس وشيقنايو سنة الأسباب والمسببات بالله وأنا شيء يعني وحويان رنتي أن رزق كلية كسب سنة هذا دونيس مثلا عرور أدرت هنا عرور لشهادة دونيس سو هنا الإسلام جورستو أد جوري أد محوا سرقتان أو مركز كولانتان أو سيدا أد المكورات سوما هذا ترى هذا كورا الإسلام يكذب كذا يرفعت كذا يجوري كذا وحده أنا مجله هي ساج كسف كوران فريسنا هي وانا الدعاء سنه إلهو إلما إسي وصعونيسا هرني هاللوجو إن المسألة لوجو سين ماي صفك وران فريسنا وانا الدعاء سنه صوبتي إلما لوجو هلي لهانا ممر هايو واللوجو صنته ورت صوبتي لا يمو رزق بعد رادينيسا كسب بعد ربطة حلال بعد ربطة ربح بعد ربطة شيت كمر ذلك كذي لا يمو ساس درادت بحديث النبي وحوها بورك لأمتي في بكورها وفي لفظ اللهم بارك لأمتي في بكورها أمتي إذا وحى لو بركي كاللهادة أما إله أبركي أمتي إذا كاللهادة أبركي صبح حبي مركو انتو تكذو مارتي أو حزبي جيسا أخرستو أذكارتي صداميستو وحوغايز جيسا ومحوها ميل سارو ayuu markaa kala hayaa xagee buu kala hayaa suuq uu kala hayaa beertu uu kala hayaa xoolihii buu dareerinayaa xamaalkii buu kala hayaa kala haad buu galaya hadaadan kala haada iyo orodkaas aadan galin sababtii maadan la iimaan marka horta sababtii keen oo dadaalkii la iimow
qodobka labaadi dadaalkaaga waxa aad rabto in lagugu siiyo iyo waxaad ku raadinayso adiga dadaalkaaga kuma xidhna ilaahay bay u taala soo saas ma oo imisa ruux baa suuqa intay galaan had iyo habeenba taagan haddana ku soo bixila nin baa jaamacad u galay dugsi hoos u soo maray oo dugsi dhaxuu maray oo dugsi saruu maray oo jaamacad buu ka baxay oo bacda aljaamica master buu maray oo PhD buu maray waxaasoo dhan wuxuu ku takhasusay sida risiq loo helo sooma inta markuu keenay oo shahaadaadkii ugu sarreeyay uu watay buu suuqa aado isii bal wax raadi mise wuxuu ka badin la yahay biilkiisa sooma mid baa geel ka soo orday tuulo iyo geel buu ka soo orday soo ordahayay Captain buu soo istaagay Captain buu soo istaagay meel kale biyo isma soo marinin markiiba suuqu orday waxbuu isku xidhxidhay xagga fahmuu keenay waaba kaba wax yar kadibna ninkii waaba taajirba faradu sidhe soo wax jira ma wax jira waa meesha waxaad garanaysaa marka in waxan la bixiyo lagu siiyo waa hawl ilaahay u taal sooma laakiin adiga maxaa laga rabaa dadaalkii la imo حديث النبي وحوها صلوات ربي وسلام عليه حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا أطلع سارا لهيدين الله سيد الشمبروه أطلع سارتان وكله وإذن إرساق لها سيد الشمبرها وإرساق وكله شمبرت الصباح دي بيك الله ذا أيضا قاعد galabtiina way soo noqotaa ayadoo kaliyuhu fidsan yihiin oo dibirsan oo dheregsan waxna meel ma dhigato soo saasba kayd male store wax uma yaalaan account wax uma yaalaan subaxda hore markuu waagu bariyo iftiinka ugu horeeya kacaysa ama caleen ha soo daaqdo ama muxuu ahaay midhaha soo daaqdo ama cayaan ha soo cunto galabtii waxay soo noqonayaan iyadoo dibirsan rabbigeed bay ku kalsoonto waxay og tahay markay kala hayso u fiirso lama dhihin ayadoo buulkeedii ku jirta buu ilaahay wax u keenay laakiin maxaa ka hormaray wax siinta kalahaad iyo orod iyo duulid iyo shaqo iyo waqti hawl bay qabatay hawshay qabatay kadib baa waxa ka dhasho ilaahay ku siiyay midhahan ku siiyay marka ilaahay tala saaro ku kalsoonow sababtiina la imo أسباب الرزق كانت كم تهاي أو كم دي هاي كلهاد هاي سلقني هنا السيحن عاجسين محوها هاي الصباح ظهري إنك صار روح أوجه الريا سوق أوجه الريا أوجه الرجلة وحقال لقد ديريي هذا مع ذلك الرزق الصباح ظهر اللقيمين ريها كسيحن رزق الصباح ظهر اللقيمين كسيحن هريكت والشغل هذا قلب أسباب توحى كم ده الاستغفار والتوبة إن إلهي تبارك وتعالى وحي خلدت قشي وقصوا نقطه دم بدافنا ويديسته هاي أنت بدن واحد حرمان ككينا يرزق إنه كوع عريمه أنت بدن واحد سبب والذنوبته ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون waxa aad arkaysan risiqa xiriiriga ah iyo cunto yarida iyo roobka la waayayo iyo dalaggiyo ba'ay iyo abaaraha iyo rafaadka iyo colaadaha iyo cudurrada iyo masaa'ibtani waxa asal u ah ibni aadamka dunuubtiisa adigana khaas ahaantaada dhibka ku haysa waxa asal u ah dunuubtaada muxuu yahay xalku marka rabbiga u soo noqo waxaad badisaa noloshaada inaad ilaahay dambi dhaaf weydiiso astaghfirullah أستغفر الله نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوم كيسي مركو كور رمي وحوري فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ربي يقول تلك يقوم كي وحن كويري إلهي دم بداف ويديست أو توبت كأنه أصنع
haddaad tawbad keentaan oo ilaahay dembi dhaaf weydiisataan yursili الsamaa'a calaykum midraara samadii buu idiin dirahayaa oo idiin fasaxayaa ayadoo dararsan oo dhibco waaweyn iyo roob badan idin siinaysa wayumdidkum biamwaalin wabaniin wuxuu idiin siyaadinayaa xoolo iyo carruurba wayajcal lakum anhaaran wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara wuxuu alla idiin yeelayaa aseendooyin beero waaweyn iyo webiyaal iyo ila qulqulahaya intaasoo dhan maxaad ku helaysaan istakfiruu rabbakum istakfiruu rabbakum meelo badan baa qur'aanka kariimkii ku tilmaamayaa dembi dhaaf weydiisiga addoonku hadduu badiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nolol wanaagsan buu adduunka noolayn risiq badanna ilaahay waa u furayaa marka adoo dukaankaaga jooga adoo jidka maraya meel kastoo joogto gogoshaada saaran waxaad badisaa istikfaarta badi astaqfirullah iyo tawbadda ha halmaamin asbaabta ugu muhiimsan ee risiqa lagu waasiciyay ka mid waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah silatu raxim walixsaan ila laqaarib inaad qaraabadaada xidhiidhiso oo raximkaaga aada xidhiidhiso oo aad ka warhayso dadka ku xiga xigtadaada ah aada wada dhalateen qaraabada tihiin dhanka hooye kaa soo gelaya ama dhanka aabba kaa imaanaya ama ma xididnimo ku imaanaya dadka xigtadaada ah inaad u naxariisato oo aada wax siiso oo gacantaadu u furnaato xadiidka fi saxiix nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam man axaba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aaharihi falyasil raximahu buu nabi uri sal lay slam ruuxii jecel in risiqa loo fidiyo raadkiisana loo dibdhigo ha xidhiidhiyo qaraabadiisa raadkiisa loo dibdhigo maxaa laga wadaa cimrigiisa loo barakeeyo ama cimrigiisa loo dheereeyo haddaad rabto in cimriga laguu barakeeyo ama laguu dheereeyo iyo risiqaaga in ilaahay kuu waasiciyo dadka qaraabadaada iyo raximkaaga xidhiidhi oo gacantaadu ha u furaato eedooyinka adeerada abtiyaasha iyo habaryaraha ilmaadeerada ilaa aakhirih walaalaha waalidiin iska badaa carruurtaadiiyo waxay sii dhaleen qaraabada soke dadkaa u roonow allana tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ciddii ku xidhiidhisa qaraabooy raximow ciddii ku xidhiidhisa anna waan xidhiidhin ciddii ku goysana anna waan goyn ilaahay ballantaasuu siiya tabaaraka wa tacaala marka dadkaa ehelkaaga a ka warhay oo wax sii oo gacantaada ha u furaato xataa aad tabar yaraatid laakiin tabaryaridu macnaheedu ma aha in aad tidhaahdo maya intani anigaba igama go'daba war ma ahe intan aad siinayso wax ku deeqaad ku heli tanaaba jidkii aad wax ku heli lahayd ah sidaas daraaddeed dadkaa qaraabadaa ha loo roonaado kolba ruuxu wuxuu heli karo khaasatan darafkan hadda aan ku jirno iyo xaaladdan hadda aan ku jirno waa xaala istinaa'iya waa xaalad waddankii burburay oo ummaddii qaxday oo dadkii in badan gaajaysan yihiin oo abaaro u baaba'ayaan xilligani waa ka sii daran tahay inaad marka dadka ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo sokeeyahaaga aada u gacan furnaato oo aada xidhiidhiso taasi waa asbaabta ilahay risiqa ku waasiciyo waalcagsu bilcagsi haddaad kuwaa halmaanto uun adiga iyo kistaada aad dhahdo adiga iyo kistaada bas haddaad tidhaahdana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kaa qaadanayaa waxoogaaga ama kuuma barakaynayo waa lagugu ciqaabayo waad ku guban qodobka xiga waxaa ka mid ah oo ka mid ah asbaabta risiqa lagu waasiciyo alixsaan ila aducafaa dadka tabarta daran ee mujtamaca ka mid a danleyda ah masaakiinta ah fuqarada ah dadka naafada ah dadka iska tabarta daran ee mujtamaca inaad u naxariisato ayaga inaad duca ka raadiso maxaa yeele nabigeenu wuxu uhi sal lla alay wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum wardadow risiqan iyo nasriga iyo guusha ma wax kalaa laydinku siinayaa ducafadiinna iyo kuwiina tabarta daran sababtood mooye waxaad risiqa ku helaysaan
ee gaalada ilaahay guusha idinka siinayo wax kale ma ahe waa kuwan tabarta daran ducadooda iyo ikhlaaskooda waa marka dadka tabarta daran naafada dadka barlaatiga dadka dhulka yaala dadka caruurta badan haysta agoonta masaakiinta dadka noocaas oo kale waa yeelka dadkaas la raadsada waa suuq laga ganacsado waa doqoni ma garatay waa in badan oo idin kamid waxa taqaanaan inta irid la furo waxoogaa in la dhigto kadibna custom lagu suga meeshaas sooma intaas taqaanaan laakiin iridaha idinka maqan baa waxay tahay war mid miskiina intaad raadiso xaaladu ka jajaban tahay oo waxoogaa siiso soo duceede sooma ducada uu kugu soo halgaado waxa laga yaabaa cimrigaaga waxaadan filan in Ilaahay kugu furo tabaaraka wa tacaala sooma waa meelaha doqoni ma garatahay oo waxa ka xuluulaysto ka shaqeysta dad khaas oo Ilaahayna wax badan ugu furay tabaaraka wa tacaala marka dadka tawarta daran ducadooda iyo ikhlaaskooda wax badan baa Ilaahay dadka ku siiya tabaaraka wa tacaala waxa kamida asbaabta iyada inaad ducaysato oo Ilaahay barido tabaaraka wa tacaala لأن خسندها الرب تبارك وتعالى وحيالها لغو فروحها كمدة دعاء كمدة خاصة حالتها هي مناسبات دعاء الله أقبلون للسؤالين ومثلا آذانك يا أقيمات أنت ولا حيسوك له حبينك جلينك الضم بسدح ميلاد لو ميلاد مركي تكتو صمدوا فرنتا حلياس مركز سفرته صعوتتها حالتها نوعها سوكلتها iyo xaalada kale waalidiinta oo kale waalidka inaad tagto tiraahdo u baari noqoto iyo soo duceey oo waalidku ku soo duceeyaan ducadu marka waa qodob asaasi ah oo mataalibta lagu gaaro waxa doonaysa aakhiriya adduunba lagu gaaro saas daradeed ducadii nabigeena waxa kamid ah sallallahu alayhi wasallam allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala ilaahu waxaan ku weydiisanayaa ilmi nafi'a ilmul kitab wa sunnah waxaan ku weydiisanayaa rabbi oo rizq wanaagsan waxaan ku weydiisanayaa amal la aqbalo marka inaad rabbiga barido tabaaraka wa tacaala in ilaahay ka saaro ciriiriga iyo faqriga bal nabigeenu ilaahay wuxuu ka magan gali jiray faqriga iyo sharkiisa gaajada fa innahu bisa dajiic wax kula seexdo gogosha kula seexda gaaja ugu daran sooma ilaahu magan baan kaaga ahay buu dhihi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ilaahay bariyadiisa inaad badiso oo gacmaha u hoorsato oo u tadarruucdo iridaha khayrkiisa rizqa xalaasha in ilaahay ku furo ayadana waa sabab kale oo asbaabta kamid oo dadka intooda badan ay moog yihiin iyadana macna waxa kamid ah asbaabta rizqa lagu furo ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu wax kugu siyaadinayo al-iktifaa bil halal 'an al-haram inaad ku kaaftoonto xalaasha oo xaaraanta iska ilaaliso maxaa yeelay haddaad dariiq xun oo khaldan wax ku raadiso ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa ka dhalanayso inuu kugu ciriiriyo hadduu ku siiyana waxaan baraka lahayn baa lagu siinaa marka xalaasha ku dadaal xalaal miiro xaaraantan faraha badanna ka tag sida markaad samayso ilaahay waxogaaga uu ku siiyo waa kuu barakeynaya wax badanna waa ku siinaya khaasatan ribada iyo wixii la mid sida rabbi quraanka ku sheegay yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ilaahay ribada waa baabi'iya sadaqadana waa kobciya oo wuu koriya oo wuu badiya xoolaha marka xaaraanta ka ilaali ribadu haba badnaatee yaraan bay ku dambayn buu nabiga sallallahu alayhi wasallam xoolo xaaraan ah waad ku guban hatta haday badan yihiin ku dagimaysa oo ku xasili maysa oo baraka male oo adoo haystaad faqiirta Soomaaliya arag kuwa Soomaaliya arag milyaneer ah oo isnacay xoolahoodu isnacay oo marka intaad u tagto aad tiraado war ruux muslima gaajeysan aniyo xogaaya ala alkiisa iyo rafaadka ka muuqda iyo ilxumadiisa adaaba u nixiba Sooma adaaba u nix warsee wax ka yihiin waxa meesha yaalaan wax barakaysan ahayn sooma mid waxaad arkaysaa waxoogaa yar ilaahay siiyey haddana suu u barakaysan yahay iyo faraxa iyo siduu u qaabilayo baahida iyo siduu uga jawaabayo aad la yaabayso
xogaagiisa barakaysan sooma marka rabbi inuu risiqa ku barakeeyo kuna waasiciyo waxa asbaabteeda kamida inaad xalaasha kaliya ku kaaftoonto ganacsigaaga laalaabka ka dayso oo beenta ka dayso oo khiyaanada ka dayso oo wax isdoomarinta ka dayso oo aad muxuu ahaayay khalqiga aad xoolihiisa si khaldan ku raadinaysa ka dayso jidka tooska mar wixii ilaahay kugu siiyaa barakaysa sharcigaagana ilaahay tabaaraka wa tacaala kuu soo deji waxaa ka mid ah asbaabta risiqa lagu waasiciyo inaad xoolaha sadaqada ka bixisood kula dadaasho sadaqada xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin kasta oo waa bariyo laba malag baa soo dega labada malag mid kamida waa ducaynaya wuxuu leeyahay allahumma a'ti munfiqan khalafa ilaahu kii wax baxsaday badal khayr qabasi midka kalena wuu habaarayaa oo wuxuu leeyahay allahumma a'ti mumsikan talafa ilaahu kii xoolaha ceshaday oo haystay oo bixin waayay baaba'si malaa'ikta maalin walba marka si aad ducada malaga uga qayb gasho maalin walba inaad wax baxsan karto isku day haba yaraato sooma caada haddaad ka dhigato waa kastoo kuu baryay inaad wax uga baxsato konton muxuu ahay ran 100 ran xataa wax kale haddaad weydo muxuu ahay 20 ran 10 ran haddaad caadaysato inaad wax baxsato ducada malaga maalin walba ha seegin waa sooma xoolaha wax laga bixiyo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kuugu furayaa irida fara badan hadda maalan dukaama idin furan dukaamada waxaad u furateen custom baad rabtaan sooma dadka jidka marahaye adeeg doonka inuu kugu soo leexdo waxa ay jeebkooda ku jira aad ka daadsato baad dukaamada u furateen customka waxa idin soo leexin ma taqaana sadaqada ku soo leexin adoomada qalbigoodu ilaahay gacantiisa ku jira sooma asaga meeshuu doonana u leexiya meeshuu doonana ka leexiya xadiidkii fi sahih ku yimid baa ku tusiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay nin saxaabada kamida wuxuu yiri yani nin saxaabada kamida qisada wuxuu leeyahay asagoo meel cidla ah jooga ayaa daruur baa soo kormartay daruurtii marka dhexdeedu wuxuu ka maqlay sawd baxaya oo dhahaya beerta hebel waraabi waa daruurta dhexdeeda daruurtii waxoogaa bay soo durugtay way soo socotay meel bay biyihii ku sii daysay biyaheedii oo idil hal keli ama hal tog aba intuu ururiyay ayuu siduu u sii waday buu hal beer oo beerihii ka mid ku shubay ninkii sawdka maqlahayay daruurtii agtiisay ku da'day oo uu soo raacay oo meeshii buu yimid oo biyihii oo qulqulahayo hal meel u socdo arkay oo uu iska daba galay hadduu beerihii tagay wuxuu u tagay nin majaraf haysta oo muxuu ahaayay biyihii beertiisa ku duduwahaya biyihiina meel kaleba kuma leexan ninka beertiisa basay ku urureen asagiina waa ku duduwanahaya markaas wuxuu warniyo magaca war maxaad iga rabtaa buu magacayga maxaad iga rabtaa warniyo sukay sheego magaca maxaad ka rabtaa magacayga wuxuu warniyo daruurta biyaheedii ay kuwan yihiin ayaan intayna diin dhexdeeda waxaan ka maqlay hebel beertiisa waraabi eniyo magaca hebel baa la dhahaa buu mise waaba magacii daruurta dhexdeeda uu ka maqlay markaasuu warniyo tanaa jirtee bal ii warrano maxaad samaysaa wuxuu yidhi hadday arrintu sidaas tahay waxaan sameeyaa buu beertu markay ii soo go'do 3 qaybood baan u qaybiyaa dalagii ii soo go'ay qayb wuxuu yidhi beertan dib ugu celiyaa oon ku beeraa qaybta labaadna biil baan ka dhigtaa qaybta saddexaadna waan sadaqaystaa sirta ma fahanti customka in la soo leexiyo allihii daruurta soo leexiyay ma custom baa caajis gelinayo inuu soo leexiyo ya waa sir idinka maqan way xoolaha markaad sadaqada ku badiso wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu waxaan tajribo ku aragnay dadka wax bixiya ayaa ugu taajirsan dadka balad ugu fiirso meelaha la isugu yimaado xoolaha lagu ururinayo ninka xoolaha ugu badan bixiya ayaa maalinta dambe markaad weydiiso tiro war ma kaanu isqaameen
ما وحابن هلي بوله وحن عادي أهين إلهي باب الله قاضي رسولك ساعده صلوات ربي وسلام عليه مرك الرزق وحياله لغو واسعية وحا كمده إن هذا ربك تبارك وتعالى التي جاريسته وأد صدقة بديسه سكذا واجبك إسكب دايد وحكم إذا أسباب الرزق لغو واسعية إن هذا كالشكر ذا إله النعمة ديس وحي إلهي كسيه هيا هذا هبطنا هذا إن هذا كالشكر وقلبك يقول كوة إن هذا الحمد لله عربك هذا كالشكر ذا وحقو كسيين هذا استعماشه ميل أورالكيه إلا الشكر هو أساس وحوقاك أو كسيه هذا كالشكر ذا واحد سوى سواسياده لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هدات شكردان والدين كردين هدات سكفردان وشكرين ويدان عذاب كي قوة درين يحب الله تبارك وتعالى مركز الشكري والغسين شكري محوية هاي الضوامة قاربة إلهي وحوغا يرنتوسيو فوحى الله يا بيسا سيدا قلبي جيسا يقوة انتو أقر سيه الله سيه أفكيسا يعرب كيسا انت وحا كسعد الحمد لله والورن الحمد لله ورحال كاغو سوي الحمد لله ورمعاد كبر دي الحمد لله ورمالمها سوق وحوية بالورن الحمد لله صوما الحمد لله وروالو قد عاية بالورن الحمد لله الحمد لله ربي تبارك وتعالى مركات كل شكر ده أفئي أدني قلبي با ربي تبارك وتعالى شك ماله إردها خيرك الرزق واسع وكفر يا بإذن الله تبارك وتعالى وحكم إذا أسبابتها أيضا وإن شاء الله تعالى ربينا نقودا بيسيو ترك الإسراف وتبذير الأموال حولها مرك إلهي كسيو إن هذا المامل كوضها اللينين وآد reerkaaga iyo caruurtaada iyo baahidaada inta wixii ka siyaadsan in aadan ku fataalin in aadan xoolaha ku fataalin ilaan dadka qaar waxa jira say uba roon yihiin oo u quman yihiin waxoogaa maalintay helaan baa waxay bilaabaan baab cusub iyo irid cusub iyo shaqo cusub ninkii hebel ahaa ma baahan ninkan kaasoo wuxuu bilaabayaa xoolihii inuu ku israafo wuxuu iibsanayaa baabuurka adduunka u qaalisa war maxaa ka rabtaa wuxuu gelayaa guri aan caadiba ahayn xoolihii isticmaalkiisii siyaadu noqonaya waa daadaadina marka waa kala firfidhina miis buu soo fadhiisanayaa cunto wuxuu dalbanayaa arrada ka badan maxaa malay ah maxaa digaag ah maxaa hilib xoolaada maxaa bariisa maxaa baasta waxba meeshan isku qurbadan wax yar buu ka taataabanaya waana ka dhaqaaqaya war maxaad u dalbanaysa waa fataalnimada xooli buu ku fataalahay xoolaha waxa la doonayaa rabbi markuu ku siiyo israafka ka ilaali ciyaartana ka ilaali risiqaaga sax ilaahay markuu adoonkiisa wax siiyo wuxuu jecel yahay wuxuu siiyay inuu ka muuqdo oo labiskaaga ka muuqdo oo noloshaada ka muuqdo oo ay masaakiintu ku soo aado sooma ilaa ninka waxa istawa la yaqaana sooma ruuxa waxa istawa waxa la rabaa inay nicmadu ka muuqato oo kii baahnaa uu yiraahdo wallahi waa ladan sooma ila sideedaba hadiise laakiin adigoo waxaysta aad sida masaakiinta u dhaqanto واستراحة يا لوجسوا آدي فلا يا كويس تمركها مركا النعمة ربها كام وقته لكنها إسراف أحد قد بن نلش كنترول يينا أيضا كوضن يينا كلتين قضب كاسنا وقضب أساسي هو أو إن يعني ما رئيسه أو إداريسه أو ما مشه مصروفات كاجا يوحى عاد بحين يسوي قاب كاتو تصرف يسوي يينا كينين حد قذب يحدود دينات اللوضة تاسي وحي كيني ساينا وحي كورور سنادا لكن حقا وحا كاسو قلبيشي كبا سوقات طبانكن مصروف كاغونا والله باتنكن وحي إلهي كسيي بقدال بات كسي دادينيس وحي إلهي كسيي بقدال بات كسي دادين سيوا حولا كوغو ديغما يان marka waxa la rabaa dhankaana in laga dadaalo israafka xoolaha laga ilaaliyo sida quraanka kariimka tabaaraka wa taala in badan aayaadka rabbi ku tilmaamay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wala tubadhir tabdhira
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. waxa weeye asbaabtu way fara badan tahay الزواج لإرادة العفاف inuu ruuxu guursado asagoo doonaya inuu ku dhowrsado oo uu zina iyo faaxisho iyo xumaan isaga ilaaliyo xadiidkii nabiga wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam ثلاث حق على الله عونهم صدح إلهي با حق إساقر لغي إنو كالميني وحكم ذا الناكح يريد العفاف روح قرسنا يا أساقو جددي سؤيتهاي إنو إسئلاليو إلهي تبارك وتعالى با رزق أفريا وكالميني marka guurka inta badan dadku way ka baqaan oo waxay yiraahdaan amaad ku ceyrtowda oo waxoogaaga aad kaaga burburaa laakiin haddii niyadaadu fiicanta oo ay tahay diintaada iyo sharafkaaga iyo aakhiradaada ku dhowrso oo ku asturan xumaanna isaga ilaali إلهي تبارك وتعالى أسبابته ورزق كفر أدونك وكالمية كمت هذين نيادو أي في عنت قل واحد عكرته إن أديك بوحي إلهي كسيو كوغوت لك قليبا وإسكيرا مركو ربا لكن إسلانتن وحوغا بدن إن إلهي أوغوت لك قليبا دعكرت وحوغا جيدي لوغوت لك قليبا مركا أديك اللقوسو ديبو إلا هذا شقينا هي صوما rag waxa jiro aad u badan ayagoo fuqara waxba haysan intay guursadeen ilaahay uu irido u furay soo saasba haad u badan sidaas daraadeed guurka ujeedadiisu ay tahay aad ku ilaashatid oo ku dhowrsatid oo kadalika aad ummadii nabiga sallallahu alayhi wasallam badisid oo caruur khayr qabta dhashid ilaahay tabaaraka wa taala iyadana waxay kamid tahay asbaabta uu arsaaqada ku furo رزقنا كواسعيو انت كدب وحان دونيا لبا قضب إنان كقبحو كلمة قضب ككوبات كسب كاد كوشرتان يا شقادة عاد كوشرتان وإن السن إذن كلوا منين أو إذن هالمانسينين وحي إياذا كم مهم سنة يا آخر دين ودي سودة اللي ترتان ضلب كالدنيا ده إيا ضلب كآخرة ده سيكال هذا نوده إن آخردي نينا أي مدكت إذن كوشرتو أدون كاغنا وحي إلهي كاغا قرينا آد بدح ذا كو قبصتو وحان نعس وعقل الدرائي نعس نما هيسا نينك مدب دمان يسي بابا أيسا وقتي جيسو أردن انتو كبحيو تي چيري سي هالمامي حديث كحنظلة الأسدي في صحيح مسلم حنظلة وحوين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه مركز وحولي أبو بكر حنظلة ومنافق بي سياس كوضا هذان حنظلة أتقاني منافق بالنقضي ورسيت وحكايين ونيوم حيو بعد شيء والمنافق بانا هيقول وما حد عاي النبي مركز لا تشوقنا ونوعدين يو وحنو شيء واحد مدابو للجنة النار تيني هرتنا ذا كم مقدان markaanu agtiisa ka tagno adduunyadii dhaxgallo caruurtii xaasaskii iyo beerihii iyo adduunyadii markaan dhaxgalana wax badan baan halmaamayna qalbiganagu waa isbedelaya sidaas daraadeed munaafiqina aan hay baan isu malayn Abu Bakar baa wuxuu ku yiri war dhibkaasi aniga lafteeda waa i haystaa falniyo ina keen soo inaga wayna ma haysto saajidka marka la fadhiyo oo la iswacdinayo waayadaha la akhrinayo waa la jidbaysan soo روح مدحو لوحيا قلبي جيسا وحبا اسكبدلي آخر أمو قد تجني النار إن عاسو آلي لكن مركا دي ريدة كدكتو دوكان كنتات قشو دور قور أي ناقها قاوانكو هور مران وحيو نوابا صوبا بدن ما اسبدلي
أبو بكر وحوري ورنب كاسي واجراي بلنا كان نبي يوتكن صلى الله عليه وسلم مركز وحوري حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة رسول قال يا حنظلة ومنافق وبي سبحان الله ما تقول ورمحاد لا ضانيه سوى جاي رسول قال منافق بس يوحو جرا markaan kula joogno nawaaninayso nawacdinayso ku dhageysanayno xaalkanagu waa sidan markaan ka tagno adduunyadii dhex galana sidan uu noqday markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ku dhaartay marka aad ila joogtaan sida aad tihiin hadaa daa'imi lahaydeen malaa'ikta jidadka iyo gogashiinaba idinku salaami lahayd laakiin ma suuroobi karto ibn aadam baatiin adduunyada waad joogtaan waadna ku dhex abuurantiin oo ku ibtilaysantiin oo sida aad tahay masaajidka markaad ku jirto waliga ma ahaan kartide oo waad ku qasban tahay reerkii iyo caruurtii oo waad ku qasban tahay tabaci oo suuqi waad ku qasban tahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam walakin saa'atan wa saa'a walakin saa'atan wa saa'a saa'ad iyo saa'ad macnaha ma fahanteen halaga wada saa'ad adduunkaaga caruurtaada reerkaaga beertaada dukaankaaga tabacaaga waqti halka gali saacada soo hadhayna saacada xigtana aakhiradaada qabrigaaga qiyaamadaada jannadaada halkan ka gal waqtigaaga saa u qaybi dukaanku sidoo u furayo oo dhex taagantaa markii lagu dhawaaqo hayya ala as-salah hayya ala al-falah خلاص tii kala timid marka soo xid sooma wala isu yeeray oo yaa loo yeeray war liibaanta u kaalay oo salaada u kaalay yaa la leeyahay soo adiga ma ruuxa loo yeeray marka saacatan wa saaca saacadna adduunyadaadna saacadna aakhirada ilaahi fadligiisuna waxa weeye waqtiga uu ina siiyay labadaba uu qaybsami karaa ruuxa duu sameey idaaratul waqti oo waqtigiisa taxakumo waqti aakhiradiisa shaqo fiican uu qabsadana wuu heli adduunyadiisa waqti uu ku kasbadana wuu heli waqtigiisa saynu san dayicin waa sooma marka wa qoliyaha rabbi tilmaamay tabaaraka wa ta'ala yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar masajida waxa amira oo ilaahay ku xusarag raggaasoo aynan mashquulinaynin tijaaro beec iyo shira uusan mashquulinaynin oo uusan ka mashquulinaynin ilaahay dhikrigiisa salaada oo la hagaajiyo sakadoo la bixiyo waxay ka baqayaan maalin ay quluubtu isrogrogi doonto oo xaalku halis noqon doono maalinkaas ay u diyaar garoobayaan saas daraaddeed ganacsigooda iyo dukaamadooda iyo beerahooda iyo mashquulka adduunyadu kama mashquuliyo waajibaadkoodii diiniga ah qodobkaasi waa qodob asaasi ah oo adduunyada ku dhex lumina khaasatan meeshan hadda aad joogtaan meel la isku halmaami karo ma bahaba waaba meel geeridiiba qarka saaran tahay sooma waaba meel aan caadi ahayn ruuxu markuu meel yara aamina yara joogo oo nabad ah oo isleeyahay wallahi inta badan inaad badbaadayso u badan tahay haduu xogaa inuu isdhiira dhigto waa wax suuroobi karaba laakiin maanta mid baa la soo dilay maanta mid baa la soo dhaawacay maanta mid baa halis ku fakaday maanta warkuba waa kamba sooma marka xaaladda aad ku jirtaan oo kale waxay keenaysaa in aakhiro loo bato oo tiraado war kulli waa la dhimanayaa bal khaatimado war soo cararana leedinka kari waa meesha wax weyn baad ku haysataan waxaad u dhimanaysaan wax sahlan ma aha laakiin waxa weeyaa waxa loo baahan yahay war khaatimada hagaajiya oo diin ku dhinta oo khaatimo wanaagsan ku dhinta oo adoo ilaahay yaqaan dhimo adoo cibaadaysanaya dhimo adoo munkarka iyo macsiyada ka fog dhimo intaad shaqaysanaysaan qodob kale aan idinku dari shaqada intaad ku jirtaan niyada hagaajiya inama al-amalu bin-niyat niyadaada waxaad ka dhigtaa aad ku u shaqaysanayso ee aad xalaasha u raadinayso inaad ku asturanto caruurtaada iyo ehelkaaga aad ku kaafidad waajibka ku gudato saka iyo sadaqa ka baxsato ummadaada ku anfacdo diintaada ku garab istaagto niyad wanaagsan oo noocaas hadaad ku shaqaysato intaad shaqada ku jirtaba ajir baa ku socda sirtaana qabsada inni ahtasibu fi nawmati kama ahtasibu qawmati
hurdadayda ajir baan ka rabaa buu sida istaagga markaan taagnahayba aan ajir ugu raadinayo sidaas daraaddeed mucaamalaadka caadiga ee adduunyo rag baa ajir ka kasbanaya oo ka guranaya labadiina dukaanka dhex taagan 8 saac 9 saac 10 saac dukaanka dhex taagan ninna ajir baa u socda ninna waxba uma socdo maxaa kala saaraya waxaa kala saaraya niyada kala saaraysa wa fi bud'i ahadikum sadaqa bu nabi sallallahu alayhi wasallam ninkiin xubinkiisa taranka ajir buu ka heli inaad reerkaaga u tagto shahwada ku gudato ajir baad ka heli markaas saxaabadu waxay yiraahdeen ya rasuulallah oo ma intaanu shahwada nadii ku gudano oo kulaylkiina hayay aan isaga reebno ayaanu hadana ajir ka helaynaa waaba waxa la heli karin markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam bal ka warraba hadduu meel xaaraan ah ku guto dambi ma ka soo raacaya haaba yiraahdeen waxaa la mid ah hadduu meel xalaal ah ku gutana ajir buu ka helayaa adiga weligaa reerkaaga waxoogaa uun shahwada ku guda mooye laakiin ajir ka raadi ma istili weli ajir ka raadiya ma idin ah malaha dad badani kumaba soo dhicinba meeshana ajir laga helaa صواب ورميه أجرك وفربدين فضلك ربنا وواسع ganacsiga iyo beerta iyo reerka iyo waxaan oo dhan ajir baa tubane laakiin niyada hagaajiya niyada saxa khayr badan baa ku jira adduunkaaga adoo helaya baa dhanka kale aakhiradaada insha Allah ta'ala ku hagaagaysa talooyinkaasi waa talooyinka quraanka iyo sunnadu bixinayaan ilaahina waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa ta'ala inuu nagu anfaco wixii sawaab iyo khayra wixii shar iyo xumaanana ilaahay tabaaraka wa ta'ala iyo khaladana ilaahay noo dhaafo ilaahay waxaan weydiisanaynaa khaatumo wanaagsan waxaan haysanana ilaahay noo barakeeyo wixii naga maqan oo khayrana ilaahay nasiyo ilaahay tabaaraka wa ta'ala dunyada sharkeeda Allah naga xifdiyo khayrkeedana Allah nasiyo khaatumadana Allah noo hagaajiyo jazakumullahu khayran wa baraka fiikum adin ku dheereeyay raali hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إلهي سبحانه وتعالى شيخ في ذات حسنات شيخ بشارات محاضرة وسيلة إنك الإلهي هاي نقوع الفقاء وهي قد يكون كل انتفاع مهمة وحاول ينام كل انتفاع شيخ وحبنا سليم مفاتيح ذي فرياشي هي غسرات أرزاقنا مفاتيح لا كان شيخ فعاو كفورنا هذا عينه استعمالها جزاكم الله خيرا صدق مسافر سؤال قاقام وماشي كتابة وشاف فقط سنة وكجوا محتاج منه يروح لي يعني مسافري هذه الدكان كفر ولا ولا قلت كان مالك ولا كان دكان كفر وصدق حوالها عن كل كتب على حرام هي الخط بسم الله الرحمن الرحيم dagaalada daaqilka ah ee gudaha ka jira ayay ka mid warkan hayo inaad dukaamada iska gara furtaan oo kadib iskuulaysaan horta muxuu ahaayey dukaanka furashadiisa ruux inuu dukaan furto asal ahaan waa shay shareecadu u gasho meeshuu ka furanayana asal ahaan waa inay u banaan tahay risqiqa rabbina tabaaraka wa tacaala dukaan lagaa kala furay ugu seegi maayo haddii 100 dukaan lagaa kala furo wax ilaahay kuu qoray qaadan maayaan wixii ilaahay kuu qoray kulli muday dukaamada soo wada qaabaamayaan ku yimid وفي الله يكون قريب للضغط هتوصل تجارب يا وجه يجا موقعي الى ترى هذا الوين صحما ايوه على الصحيح يكمل ابي روح مسلم في ورالك اي حقيقه صحيح انه الضرر كسر قال مركز محور لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار هذه وجود حقيقي يجب
هذا يصير مسألة تاعي رزق إلهي إنه والبوال كوكو وصلنا يكاد هيبقى القوانين أكثر هكسر دوام يوجه معها وحنا كمان ديدي كرتي كمان مرحين كرتي هذه إذا يوقف فرنت هاي كاجي للرسول نحكيلين حطوا حتى على كم طيب هتو كون دواديو رزق إلهي بالسوي هذا لك إلهي بالسويسة كالسوري أقارب بركة إلهي وقف السير مو قريب وارث فهذا بين المحاضرات خصوصا بالله رزق إلهي وقف قريب سبب يكون كأنت الله أمر الكهر كنتم خد أصر الكهر بيصير قريب وقفوا طيسمين وحسنا سوكلا عندنا هالطلع تعالى إننا هكذا هحسكي هفويني ولا الكاوي ولا الكاوي إسكاشرة هذه وقتها والله ما يزال والله الله يا ما تدرس كذا قبل السوق المتان يا هاي وقت سؤال ويسوق رزق حق يعني واحد كمده حتى مسلمين تا سنن كقرآن كسنة يتلوه واحد كمده يعني سنة الإيثار حتى ولا الكائن أقول دورته وبحن هيك أقول دورته والسبب هو الربحان هنا ومبدأ آبو في المقرار سيدة صلاة أرنتاسي وأرنت طلقة لا ينزل يسكون لينيو والنوع حسدا وشرا شرعنا وبنانا وحاكم شرا النوع يقين درو إيمان حمي أبا كنشرته أرنتا أيضا مركب اللي يوفق هذا في عالم هنا إسكاشتان وإسوسو دواتان وذكر عصتان إسكاشتان وسيداسا صحة لكن يقفقوا يهيسوا دوالي حدودين كنشر سناو نما قرقا يصير دكان وفرين لوكيشن دكان وفرين أتوجد هذا اللوكيشن كان لا بس وكيل كمان ده فوق الشر وحواه جاي قصة صح ما سلطة مسألة قضوية وحقلنا وروحا وحديدة هي التجارب كفرنا وحقلنا وروحا وحديدة هي التجارب هي محل يكسر دوانا يعني كاسر وحوجا عقيدة وكيرا الله يسنتو سوى حين حسب كعقيدة رمضان الإيمان رمضان تلس كده وحي لا يكون قوي ميسن إن شاء الله تعالى وقلت كان هذه لغاية فرق كل سوري أقارب إن شاء الله تعالى والله ninkan wuxuu leeyahay ilaahay dartii baan ku jecel lahay marka labaad qofka inaan dhaho ii duceen ma bannaan tahay qofkaas oo wax iga joogo ama iga maqnaayo الله يجعله روح نور وأدوك الشوقة إن أديك عاتنا على الله صح غير بنات النبي صلوات الله والسلام عليه عمر بن الخطاب وحي يقول لي أضاء أكثر منك الإله ويس ضل القرآن أنت أبيني الجليل الله أكوت العيب في الإسلام حديث رمضان مرة مسألة بصارة مركب روح النار إنه كنت عيو وديت عيت إلى هذا وهذا مشروع لكن واحد الإيدين هو الروح بنتين وقبر الجلين إلى ترى الشيخ ولو بيسوا الجلين وتبقوا مطلعين هذه ما بيسكلم والله أما بيت كام مقام إلى الاستلام السنة الصومالية تشوف أماكية تشوف وباشا يقول مقرأها وأنت هذا الشيء ولو بيسوي الدعاء وتبغى ما يسكت لكن هذول نور يتواصل مع ولا كذا أما كل شيء هو أما تلقاه ممكن توديك تعزله هو صح وأنا توصل كالنوعية اللي سبناه كله نعم كان لو عليه الشيخ إلهي ترتيب وقوة شعله وحال حصل إلى أجيب عليه إلهي مراد كاغا حسن وحامد ربطو إلهي ما قرأنا مقصود كاغا خير الله مو حقيقيو كيري قام بها يقدمان سيد المسلمين تا يقول مراد كيسا خاص كالله يريد أن يصيب فرنطاني والبقيق عيد من هذا الكيان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عيات القرآن
وحيد المضي لو حكم إذا تضوات كن وجنة الجيل دوران يبغى الحساب يعلى منه مرين تضوات لك يكون مركو شيء أيام اللي له العكاش فاستعجوا الرسول إله يوم إنه إلهي يقدر القوس يويدي لو كان اسمه وقال سبب الرسول صلى الله عليه وسلم كم بعد هاي القوة يريد بعض فرنسا مين قال أسوي استعجوا الرسول أنا قال ركاش كاجو الرئيس يعني كمية مثل هذه المواقف كمية بعض هذه المواقف يريد بعض فرنسا سيدا صلاة الحكمة النبي وحوي ورني ولا يعرف الريب وكل حاجة وإن شاء الله تعالى نمرت المقصود كذي مراد كنا خيرك يا ماشي عن كتب الله بالله تبارك وتعالى منك الله يقعد تبارك الله فيك ninkan wuxuu leeyahay dadka qaarkood oga dhaqan xumo ka muuqata iyo tasarruf xumo badan oo gaaladu ay ku arkayaan dadka muslimiinta waxaa kamid ah suu'ul mandar inuu macnaha ruuxa aragiisu xun yahay si xun uu macnaha dharkiisu si wanaagsan uga labisna waa wasakhaysan yahay inuusan cadaynin oo xaqaa'iqi afkiisu wasakhaysan yahay iyo dabeeca xumo iyo waxyaaba noocaas oo kaleeto dadka maxaa ku nasaxayn إن الله جميل يحب الجمال إلهي وقرسني هاي ورحنا وجعله ونقول مسينا هذا الكائن ربكو يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم شنو الكلمة يقول قلبي إيسا يكتشف توحيا وكيلا الصحابة كم إذا يستوعب رسول إلهه midkayo wuxuu jecel yahay in dharkiisuna quruxsan yahay kabihiisuna quruxsan yahay wakibir baa markaasaa nabi muxamed sal alay slam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel nadaafadu waa asal ka mida usuusha shareecada sidaas daraaddeed baa maalinkii 5 goor inaan weysaysano waa nooc nadaafada ka mida mar alla markii saxaro ama kaali timaado inaan istijaysano oo nadaafadda ummadda muslimka ah wax ka nadaafad badan ma jiro sooma waa ummadda keliya ee markii waxyaabaha jidhka ka soo baxa ay ka soo baxdo biyo isaga dhaqdo soo saasma inta kale meelaha xataa jidhka laabatooyinkiisa inta badan wasakdu fuusho awaamiir baa ka timid ciddida jara oo filfilada timaha ka gooya oo timaha kumeerka ku yaalla ee xubinka taranka ka koreeya xiira waxaas oo dhan maxaa loo leeyay calashaani waa nadaafad sooma marka ummaddani waa ummad nadaafadeed ummad wasak ma ah cadayga nabigu yuri sal alla alay wasalam haddaanay ka baqaynin ummadaydu inay ku dhibaatooto salaad kasta markay tukanayaan iyo wayse kasta waxaan ku waajibin lahaa inay cadaydaan laakiin inay ku dhiboodaan markayaan mar walba cadaygaasay wada jirin marka nadaafadu waa shicaarka diinteenna quruxdu waa jacayl ilaahay baa jecel oo diinteenna waxay ka mid tahay usuusheeday ka mid tahay sidaas daraaddeed inaad miisaal iyo tusaale fiican noqotaan baa mujtamacaad baad u timaadeen dad baad u timaadeen waa gaalo waa diin la-aan dad soo qaxay oo soo cararay oo dalkoodii dhibaata kasoo eriday baati waa u timaadeen waxaad xambaarsan tihiin risaalo iyo mabda idinka laydinka dhex aqrisanay haddii foolxumo iyo wasakh iyo ur iyo wax uun aan munaasib ahayn dadkii idinkala kulmaan waaba diin uraysaa iyo diintooda iyagaa uraya la dhihi maayo laakiin maxaa la dhihi diintoodaa uraysa wayaa diintaada qaadanaya haddii akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo been iyo isdabamarin iyo dhac iyo khiyaano iyo aad dadka kula dhaqantaan diintiinay ka go-an tahay sooma markuwa ayaa diintooda qaadanaya waa beerayaa khaa'imiin wa sidaas daraaddeed in badan dhib baan u geysanaynaa diinteena markaynu iskhilaafsannahay oo qoorta isugu jirno
وينجي يرين إلا قاب عليه سوق عليه أنت يرين قال أما الله وحبيسينا هذه المستعوين إلهي ما نكون هذه picture intelligent بانتحنا يا picture intelligent بانملاصينينا إنك كرامة اللي شرط اللي الدين اللي يضل كأن كل ولا صامين صلاصة مرة إنسان تكامل اللي تجارة اللي يكرهسك على نقاط ما هو فاحينه هذيك قرماءها هذيك هم صامين يا إسلام لكن واحد قال إذا أمة ضربة قيد كتاعي دين يبدأ أخلاق يبقى دين بيقول قرص لكن واحد لو بهاي إلى نقولنا مراية في عن إلى نقولنا تصالح في عن ومضوا أخلاق ذلك يتقن كذا كل إسلامته وضمن مسلمين تقوى أقبلا مسلمين توضع الإنتاجات وحاول أقبلا على جهة وهل الدولة الهوسي ماذا حاول أقبلا إندونيسيا طبعا إندونيسيا أقبلا وضعك إندونيسيا مسلمين تدقال الجهاد كوين القرآن دين دوحة الأوغارسية كرعصته وتكتئني كرعصته markay ganacsigii u tageen dadkii ay dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq ka arkeen sidaasay diinta ku soo galeen marka dadkani diinta ay wataan iyo akhlaaqooda wax la dayn kara ma aha Indonesia saasay ku islaamay Philippines saasay ku islaamay Aasiyada fog iyo in badan oo ka mid ah islaamku saasuu ku gaaray haddii ilaahay dhulkan idin keenay dadka tusa waxay diinteeda ku jeclaadaan ومقع يضل كيني يضل كيني كل شيء على وقتها إن شاء الله تعالى لكن حوالي الله ينقع في نص كنت رجل إلى دين أمك يضل بمثالش هذا كله غير بين سواء قبيل ليش إن كتشو لا واتشو قاعد ليش إلا من كتشو قاعد وابكودي ليش عارفين كتشو كتاب إسلام كي بتشو صومالي بتشو لكن مشكلة هي ستوح وين وحن عادة كبيرة للصومال وماشوا ماري المرض ولو كنت لكن يأتيك بين الوقت والمريض هما ماري ماشوا حق مريض عدة ما يسمى صومال كنت لك شيء يمر وكذلك كان بدل إن شاء الله تعالى ونظافة يومناك يخرج يخلاق يسوتشي الشيء أيضا إن شاء الله تعالى دعوة الصابر ونصوي جزاكم الله خير سؤال شرط بيسان وحولي يعني ميل الكلاب الدكان ما لقى كل سنة ميل الكلاب الدكان ما لقى كل سنة سؤال واحد لو كان هذه كلاب في المكان كلاب هو كلاب هذا هو الدكان كان عليه أمرض أمره وماشي إذا نوعه هذه الدكان كان عليه لكن لو أنت أدسله لهين لك مكيس حلقة يا الله سؤال شو إن الكتم وإشكال مكيم كلاب كتبت القليل أيام حقيقي بسنة السلاح صحيح مشكلة مرة هذه الكلاب كلهم مبوك عالمين Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is